waxaa ku hoos dugan dhismahan aadka u dhaadheer ee quruxda badan. Waxaan booqanaynaa hadda goob qarsoodi ah oo kaamirada sida qarsoon looga soo duubay. magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Waxaan ka hadlaynaa maanta oo aan daaha ka qaadaynaa barnaamij aad u xiiso badan oo aan rajeynayo inaad ka wada heli doontaan nolosha qarsoon ee mugdiga ah ee aadan wax badan ka ogeyn ee ka jirto Dubai. haddaba intaanan ka hadlin waxyaabaha qarsoodiga ah ee Dubai ka jira waxaan toos u abaaraynaa wadanka isu taga Imaaraadka taariikhdiisa si aan wax badan uga fahanno. December 1971 waxaa isku tagay 6 isteed oo yaryar. 6dan isteed waxay kala ahaayeen Abu Dhabi oo ah caasimadda wadanka Imaaraadka, Dubai xarunta ganacsiga wadankan, Sharjah, Ajman, Al Quwayn iyo midda lixaad oo ah Fujairah. 1972 isteedka toddobaad ayaa dib kaga soo biiray 6dan isteed waxaana lagu magacaabaa Rais Al Khaimah. Toddobadan isteed ayaa la isku dhahaa isu taga Imaaraadka Carabta. tirada inta qof ee wadankan ku nool waa 9.771 milyan oo qof, laakiin mid ogow boqolkiiba 20 ayay ka yihiin dadka Carabta ah ee wadankan u dhashay, halka inta soo hartay ay yihiin dad soo galooti ah oo wadankan u imaada ganacsi. dakhli sanadeedka wadankan sanadkii uu sameeyo waa 421.1 bilyan, waxayna ka dhigaysaa wadanka saddexaad ee ugu qanisan adduunka marka laga soo tago wadanka koowaad ee ah Luxembourg iyo wadanka labaad oo ah dowladda Qatar. Abu Dhabi waa caasimadda wadankan, halka Dubai ay tahay xarunta ganacsiga wadankan. waxyaabaha Dubai ee khaaska u tahay ama wadankan aadka loogu yaqaan waa dhismaha adduunka ugu dheer ee Burj Khalifa. haddaba mowduucan wuxuu ku saabsan yahay waxyaabaha qarsoodiga ah ee aadan wax badan ka ogeyn ee ka jira Dubai. dowladda wadankan ma ogola in shaashadaha caalamka la keeno ama dadweynaha loo bandhigo waxyaabaha qarsoodiga ah iyo nolosha mugdiga ah ee ka jirta Dubai. Dubai marka aad maqashid waxa ugu horeeya oo maskaxdaada ku soo dhacayso waa dhisme aad u qurux badan, xeebo, dhismaha adduunka ugu dheer ee Burj Khalifa iyo in ay dalxiiska ku wacan tahay oo u jeclaan lahaa qof walba oo maanta lacag haysta in meeshan uu dalxiis u imaado. laakiin maanta waxaan daaha ka qaadaynaa nolosha mugdiga ah ee aysan jeclaysanaynin dowladda Imaaraadka inaad wax badan ka ogaato. waxaa ku hoos dugan dhismahan aadka u dhaadheer ee quruxda badan. ma isleedahay casrigan iyo dunidan aan joogno weli waxaa jirto nolol aan ku tilmaami karno nolol adoonsi ah. Dubai waxaa ka jirto nolol adoonsinimo ah oo aadan isdhehaynin meeshan aadka u quruxda badan ayaa dadka lagu gumaystaa. sidaan wada ogsoonahay wadankan waxaa imaado dad aad u fara badan oo usoo doonta shaqo, ha u badnaadaan dadka Hindida ah, Bakistaaniyiinta ah iyo Bangladesh iyo xoogaha dad Afrika ka tegay. waxaa jira kambaniyaal aad u waaweyn oo meeshan ka howlgalo, waxayna heshiis leeyihiin dowladda, waxayna dadka ka soo qaadan wadamada aan soo sheegnay sida Pakistan, India, Philippines, Bangladesh iyo xoogaha wadamo Afrika ku yaala sida Kenya. ayagoo dadka u sheegaya kuna qancinaya waxaad helaysaan shaqo aad u fiican, lacag fiican aad ku qaadanaysaan. laakiin qiyaanada ay kambaniyaashan kula kacayaan dadka ay ka soo qaadeen wadamadooda, qofka markuu airportka ka soo dego waxay ka qaadayaan dokumentigiisa iyo baasaboorkiisa. 2.8 million women work as maids in the Middle East. Many have their passports confiscated on arrival, and some find themselves trapped inside homes. gabdhaha jaariyadaha ee ka shaqeeya guryaha wadamada Carabta ayaa wajahaya dhibaatadan. waxaa laga yaabaa inay shaqeyso waqti aad u badan oo aan la siinin lacagta iyo mushaarka lagula soo ballamay, xuquuqna ma haystaan, mana hadli karto oo awood uma laha inay xataa booliska u tagto dacwana ay gudbiso. hadday isku dayi lahayn in wadankooda ay ku noqdaan baasaboorkooda ma helayaan oo waxaa ka haysta kambaniyaashaas. gabadha waa gabar Kenyaan ah, ayadoo shaqadeeda wadata ayaa waxaa kacay dab, wayna gubatay ayadoo ku qaylinayso iga soo gaaray ee badbaadiye. Nachomeka, nisaidie mama. Alipotamka waxa ay sheegtay gabadhan in maamada guriga oo ay shaqaalaha u ahayd ay ku daawanayso dabka iyadoo gubanayso. Kenya ayaa laga soo dejiyay, ugu dambeyn waxay u dhimatay gabadhan dhaawacyadii ka soo gaaray dabkaas. Now this is her. gabdhaha ka shaqeeya guryahan Carabta wali waxa la iskugu daraa qaraacitaan iyo jirdil. No, the world has come to know what is happening. As a mother, as a leader, I will not stand, I will not sit and watch this kind of. We are not animals. There is no slave trade anymore.
sidoo kale waddankan wuxuu xoogga saaraa dhismaha iyo dabaqyada aad ku dhaadheer dhismahan aad ku dhaadheer waxaa ka shaqaysta xamaalatana ka ah dad iskugu jiro Pakistaaniyiin Hindi Philippines iyo dadyow kale sidaan soo sheegnay kambaniyaal ayaa heshiis kula galay dawladda in dadkan ay ka soo qaadaan wadamadooda si ay waddanka uga shaqaystaan waxaan booqanaynaa hadda goob qarsoodi ah oo kaamirada sida qarsoon looga soo duubay oo ay ku xariisan yihiin dhalinyaradan ka shaqaysata dhismaha waxaan meeshaan ugu tagaynaa waxyaabo aadan ka filaynin inay ka jirto Dubai So how many? There's 2, 4, 6, 8. Yeah, I'll do that. I'll do it. We want to see whether people are happy. It's okay? Okay. So do you want us to leave? Yeah. Okay. Sure. No problem. halka qol waxaa lagu seexanayaa ilaa 9 qof nolosha ay dadkan ku jiraan waa nolol aad u adag haddana waxaan joognaa goobta meeshaana lagama ogolo in camera lala soo galo muuqaalkan waxaa loo duubay si qarsoodi ah xitaa wiilashan meesha la keenay ma helaan cunto ku filan noloshooda aad ayay u adag tahay baasaboorradooda iyo sharciyadooda laga haystaa xataa hadday isku dayaan inay waddankooda ku laabtaan ma awoodaan qaarkood ayaa noqday homeless ama darbi jiif dumarkaas cidlada seexanayo sidaan wada ogsoonahay waddankan waa waddan carabeed oo islaamiga ah laakiin waqtiga habeenkii marka la soo gaaro aad booqatid goobaha qaar isma dhehaysid waxaad joogtaa waddan islaamiga ah kalaabiyada anshaxumada iyo waxyaabaha aad la kulmayso ama indhahaagu ay qabanayaan habeenkii dad badan ayay riyadooda tahay in Dubai ay dalxiis u tagaan kuna soo raaxaystaan sidoo kale ayadana dad badan ayay riyadooda tahay in Dubai ay ka soo tagaan wadamadoodana ku laabtaan si nolol xorriyad leh ay u helaan muuqaalkeena aan kaga hadalnay nolosha mugdiga ah ee Dubai intaas ayuu ku egyahay haddii aad u aragto in muuqaalkan aad wax ka faa'iideen ugu soo bir subscribe noona si ay dhiirigelin noogu noqoto